haweenku waxay ka tirsan yihiin ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliya sida booliiska, nabad sugidda iyo xoogga dalka sida commandos-ka Danab. kaalinta ay ka ciyaaraan hay'adaha amniga waa mid muhiim ah. waxay ka howlgalaan dhammaan qaybaha iyo laamaha ay ciidamadu ka kooban yihiin iyagoo qaarkood haya xilal hogaamineed. kuwa ka mid ah waa taliyayaal, saraakiil xigeenno iyo askar caadi ah. tiro badan oo ka mid ah haweenkani Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ku biira ciidanka xoogga dalka. haweenkan waxay doonayaan in ay meesha ka saaraan ra'yigii qaldanaa ee ahaa inaysan askar noqon karin. markay ciidanka xoogga dalka ku biiraysay gaashaanla dhexe Iimaan Maxamuud Cali Axmed 10 sano ka hor waxa uu muuqday inay isbedel horseedi karto. waxaan imid wadankii runtii marxalad adag ku jiray. waxaan iga go'naa inaan dalka wax u qabto. waxaan ii soo baxay waqtigaas in dalku uu u baahan yahay in koow laga shaqeeyo xorintii iyo in wadanka horta amnigiisa laga shaqeeyo. markii amniga la helo baa waxyaalaha kale tabeegadaalka imaan doonaan. marka anigoo hadafkay ahaa inaan wadanka dalkaygana wax u qabto oo waajibka ani isaaran guto ayaa waxaan ku go'aansaday inaan ku biiro ciidanka xoogga dalka. muddadii ay ciidanka ka tirsaneyd Iimaan xilal kala duwan ayay ka soo qabatay sida hogaaminta ururo kala duwan. hadda oo ay ku magacaaban tahay hoggaanka xiriirka arrimaha dibadda ee ciidanka xoogga dalka waxay aragtaa fursad hogaamineed oo u banaan dumarka. Asli Maxamuud Xalane waa guutada 16aad commandos-ka Danab ee xoogga dalka. waxay aaminsan tahay in haweenku ay door aad u firfircoon ka ciyaaraan sugidda amniga dalka iyo dadaalka loogu jiro in Soomaaliya laga dhigo mid nabdoon oo xasiloon. haweenka waa kala bar bulshadii waa qayb ka mid ah bulshadii, waa hooyooyinka, waa walaalihii. ruuxantii mana jiri karto amnina ma jiri karo bulshadii haafkeedii oo maqan ama kala barkeedii oo maqan. marka muhiimadda leedahay ama isbedelkay keenayso waxa waaye in dalkii rag iyo dumarba qof kasta Soomaaliyeed waa muwaadin wadankan leh. waxay noqon in la isgarab istaago, qof kasta meesha ku fiican loo diro, rag ahaadaan dumar ha ahaadaan. marka aaday wanaagsan tahay ama aaday muhiim u tahay dumarka ciidamada ku soo biiraayo. Iimaan iyo Asli waxay rajeynayaan in ay meel sare ka gaaraan ciidanka. labaduba waxay qabaan in ay jiraan wax badan oo dumarka Soomaaliyeed ay kaga dayan karaan, gaar ahaan gabdhaha doonaya in ay ciidanka ku biiraan. waxay ku boorinayaan haweenku in ay soo baxaan oo ciidanku qortaan dalka iyo dadka Soomaaliyeedna uu iyagu sugayo. baaqa aan rabaa inaan u diro shacbiga Soomaaliyeed oo daawanayaan waxa waaye in ay taageero buuxa siiyaan ciidamada qalabka sida. dagaalkan maanta waa dagaal loo baahan yahay in lagu wada midoobo oo laga shaqeeyo. marka aniga fariintayda waxa waaye aan istaagno, aan la shaqeyno ciidanka. fariinta u diraayo dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee rabaan ciidanka inay ku soo biiraan xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Danab waliba gabdhaha waxay tahay waxa la soo dhawaada. ciidanka waa ciidankiini, wadankiini waaye, cid idinka xigta ma lahan. haddaad diyaar u tahay inaad wadankaaga difaacdid, muwaadin dalkiisa jecel tahay, u diyaarsan inuu ka soo baxo because shaqada ciidamada waa adag tahay, wax sahlan ma aha. qof kastana kuma dhiiran karo ilaa aysan jirin qaacido ku wada iyo qofku wuxuu aaminsan yahay. marka waxa la yahay haddaad tahay qof dhalinyaro ah, qof Soomaaliyeed, gabar iyo wiil waxaa tahay jecel dalkiisa inuu difaaco. anaga walaalaha ayaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ciidankaaga waaye. waxaa la dhihi lahaa soo dhawaado. si kastaba ha ahaatee dad badan waxay rumaysan yihiin in waxa la saadaalinaya ay tahay in ay sii kordhaan kaalinta hogaamineed iyo waxqabad ee haweenka, gaar ahaan iyadoo hadda lagu jiro xilli doorasho oo saamileyda siyaasadda dalku ay isku wada raaceen in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30%.